وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحنو سعدا عشرديني تحنها أها aan magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala marba magac uga hadlaynay waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee ah al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala waa alla gob ah oo dadkiisa iyo khalqigiisa dhammaan gob u ah waxa uu siinayana si gobonimo la ku siiyo oo karam ay ku jirto. sadarteed Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa iyo tilmaantiisa waxa kamid ah waa alla khalqigiisa siiya ayagoon waxba uga bedelanaynin iyo ayagoon waxba weydiisanin. sida darteed sifo kasta oo wanaagsan waxay carabtu u yaqaaneen inay ku magacaabaan karam ama kariim. wax kasta oo wanaagsan ay sida u bixiyaan. qofka abtirsiyihiisu uu sida marana wuxuu noqonayaa qof gob ah oo gob dhashay oo gobisii dhashay. dadka lagu sheegay waxa kamid ah Nabi Yusuf alayhi salaam oo leeyahay waa Karim ibn Karim yaani asaguna waa gob nabi gobana waa dhalay nabi kale gobana waa dhalay. waana qofka dunida ugu abtirsiyaha fiican uguna abtirsiyaha qurxan oo intaasoo nabi inay iska ka dhalaan adigana Ilaahay nabi ka dhigo gobonimo ka sareysa oo qof bini aadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siin lahaa ma jirto. waxa kale oo ereyga Karim lagu magacaabaa waxa fiican oo aadka u qurxan haday tahay xagga midabka oo Nabi Yusuf waati ay dhahaan in hada illa malakun karim. waxa kale oo lagu magacaabay jannada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri maqamun karim يعني meel aad iyo aad u sareysa oo aad iyo aad u sharfan oo sharafteedu meesha ugu sareysa ay gaartay waay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka quraankiisa markaad u fiirsato ereyga ama magaca Karim wuxuu u isticmaalay waxyaabaha aadka u sareeya ee qiimahooda aanan marna la soo koobi karin. waxa kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga isku sifeeyay ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. waxa kale oo lagu sifeeyay wixii wanaagsan qurxanna waa lagu sifeeyay hadalka wanaagsan oo qurxanna waa lagu sifeeyay oo waaridka marka la hadlayso waxa loo leeyahay waqul lahum qawlan karima yani loola jeedo waaridka marka la macaamilayso hadalka afka ka soo baxayo waa inuu noqdo hadal waaridka u qalma isla markaasna aad u dhahdo sida ugu wanaagsan ee ugu haboon ee ugu quruxda badan ee aad u oran lahayd. markii Ilaahay dadka uu kala sar marinayay ee qofka ugu sareeyo ama sifada ugu sareysa uu ka dhigayna waxay ahayd inuu Ilaahay yiri inna akramakum indallahi atqaakum oo loola jeedo alla agtiisa waxa ugu karaamo badan oo ugu sharafsa badan oo ugu gobsan qofka ugu dhowrsan oo ka dhowrsada dhibka inuu khalqigiisa u geysto ka dhowrsada xumaanta kuna dhowrsada inuu wax allaaleey wixii wanaaga uu naftiisa baro. Ilaahay waxyaabaha uu Karim ku sifeeyay waxa kamid ah quraankiisa innahu laqur'aanun karim fi kitaabin maknuun. wuxuu kale Ilaahay Karim ku sifeeyay Nabi Muuse alayhi salaam oo leeyahay wajaa'ahum rasuulun karim. waxa kale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sifeeyay sida uu u wanaajinayo khalqigiisa marka ay adduunyada ku soo shaqaysteen oo ay aakhira yimaadeen oo dambi dhaaf iyo ajir iyo bishaaro oo isugu darayana ayadana Karim buu ku magacaabay fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. wuxuu kale Ilaahay Karim ku bixiyay arshigiisa fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim. waxa kale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala Karim uu bixiyay malakul jibril oo ah quraanka loo soo dhiibay oo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu soo aaminay oo Nabi Muhammad u keenay oo Nabi Muhammad quraankii oo dhan ku dul akhriyay ilaa aayadii ugu horeysay ilaa aayadii u dambeysay ramadaankii ugu dambeeyayna quraanka la akhrinayay ee nabiga la mudaarisaynayay ee kula subcinayay ee quraanka la akhrinayay waxa la yiri innahu la qawlu rasuulin karim. wuxuu kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala Karim ku sifeeyay Nabi Sulaiman qisadiisii markii laga sheekeynay waxa la yiri inni ulqiya ilayya kitabun karim. sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo soo dejiyay quraan karim ah oo Rabbi Karim nooga imaaday oo malik yani malakul jibril oo Karim loo soo dhiibay nabi Karimna loo soo dhiibay ummad Karimna lagu soo dejiyay oo loogu talagalay inay noloshooda iyo dhaqankooda ay ka dhigtaan. sida darteed waxa aad haysato
وأنا أقاتا إني كتمد الله سبحانه وتعالى كريم وخلقه كريم من كم إذا علماء هراء مسلمين تقول الفضيل بن عياض بوحى لو يدي وحي إلهي وآخر مركان تقو هدي لي إلى هذا محا خلطات كاسوق شيء أو كذي ما غرك بربك الكريم هدي لي ويدي وحى لا يهوده إلهي وأذا شيء وحى أنيقا ikadiyey karamkaagii anoo rajo ka qaba in alla agtiisa aan karamkiisa wax ku heli doono culimada qaarkood waxay yiraahdeen marka Allah subhanahu wa ta'ala sifada kariimka ay isku bixiyay waa sifada uu Ilaahay marka uu wax ku siinayo asagoon abaalkaaga sugaynin ina ugu abaal gudana aan sugaynin uu Ilaahay deeqdiisa ku siiyay oo sida ugu quruxda badan oo khalqigiisa wax loo siiyo uu ku siiyay wuxuu kaloo yiri caalimkii weynaa al-Junayd الكريم وحلول الجذاب ودها إلهي سبحانه وتعالى باهدا هذا كفالة قاضية أصدق أن وسيلة كوي دينين يعني السيدة وكو كفالة قاضية أذية طلقكم ملهد تصالكم ملهد حوككم ملهد حالتكم ملهد إلهي بقى أصدق سيدو ربا كو سينايا سيدو ربنا كو ديقايا صدرت دوحي رهدين علماء كريم كو حويه الله كو سينايا marka aad si edeb leh wax u weydiisatana waxbuu ku siinayaa marka aan si edeb lahayn wax u weydiisatana Ilaahay waxbuu ku siinayaa yaani qofkii isagoo mararka qaar shirki sameeynaya oo dambi galaya buu hadana Ilaahay ugu deeqaya oo dhahaya Ilaahay waxa si marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa alle hadii aad si edeb leh wax u weydiisatana wax ku siinaya mararka qaarna adagoo wax khaldaya oo si edeb darra mararka qaar Ilaahay u baryaya hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku roon yahay wuu ku roonaanaya si fiican oo qurux badan oo wanaagsan buu Ilaahay wax kugu deeqaya waxay yiraahdeen culimada luqada ereyga la yiraahdo al-karim ama al-karam waxyaabaha loo bixiyo waxa kamida waxa la yiraahdo canabka oo dadku ay maxaan ku yiraahdaa jecel yihiin aad iyo aad dhadhankiisa u jecel yihiin inay gurtaan ay jecel yihiin marka ereyada magacyada uu canabka leeyahay waxa kamida inuu yahay al-karam wax deeqa oo dadka si fiican wax ku siinaya waxayna yiraahdeen sifadaas waxa magacaas ku helay marka koowaad dhadhankiisa macaan marka labaadna mirihiisa jilcan marka saddexaadna qodaxna male waxa ka tagtana male marka afraadna waxay yiraahdeen gacantaada ku soo goosan kartaa oo intaad gacanta u taagto baad soo goosan kartaa waxay kaloo ku fiican yahay bay yiraahdeen marka uu cagaar yahayna waa la cuni karaa oo dhadhankiisu macaan yahay oo jilcanaaday marka uu adkaadayna waa la cuni karaa wuxuu kaloo ku fiican yahay bay yiraahdeen cuntana waa ka dhigan kartaa cabitaanna waa ka dhigan kartaa intaasoo tilmaamood markuu isku helay baa waxa loo bixiyay inuu kamid yahay geedaha baxageedka ugu kariimsan oo ugu fiican inuu yahay yaani hadda waxay tusaale u soo qaadaan timirta oo kale timirta waad cuni kartaa laakiin gacanta inaad ku soo qabsato waxa laga yaabaa inuu ka dheeraado markaad afka gashatana laf baa ku jirto la rabaa inaad ka bixiso laakiin cinabku waa ka duwan yahay xagga dhadhanka waa uga duwan yahay xagga sahlanaantana waa uga duwan yahay sida darteed Allah subhanahu wa ta'ala marka uu rabo inuu wax kugu deeqo ko wuxuu kugu deeqayaa nacfi wax adiga wax ku taraya wuxuu kaloo kugu deeqayaa bay yiraahdeen waxa nacfiga wax ku taraya waa ku joogteynaya yaani si joogto ah waxa lagu siinayaa wax adiga ku anfacaya yaani hadii khalqigu damcayno ayaga wax isasiiyaan mar unba wax ku siin karaa ama mar labaad buu wax ku siin karaa laakiin waxaas uu ku siiyay laftigeedu inuu kugu celceliyo waa suurtagal laakiin uu Ilaahay kuma joogteen karo laakiin Allah subhanahu wa ta'ala awooda uu leeyahay waxa kamida inuu inta wax adiga wax ku taraya ku siiyo hadana ku joogteeyo tusaale yar u soo qaado caafimaad baa Ilaahay ku siinaya caafimaadkii buu ku joogteynaya ilma Ilaahay ku siinaya ilmihii buu ku deynaya cilmi baa Ilaahay ku siinaya cilmigii baa hadana ku joogaya oo qalbiga ay ku sii jirayo sadarteed Allah subhanahu wa ta'ala waa alla deeq badan waa alla naxariis badan oo awood u leh waxa uu ku siiyay inuu hadana si joogto ah kugu sii daayo wuxuu kaloo Allah subhanahu wa ta'ala kariim ku yahay hadii wax yar oo dhibaatada kugu dhacdayna aad ku sabirto in lagu siiyo wax allaalay wixii aad ku iloowi lahayd wax allaalay wixii dhibaato ah oo ku soo maray marka dambana abaalmarin adduunyada aad ku helayso abaalmarin aakhirana aad ku helayso waxay kaloo culimadu yiraahdeen Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku siinayaa oo kugu deeqayaa oo kariim kugu noqonayaa waxaad u baahan tahay iyo waxaadan u baahnayn oo loola jeedo mararka qaarna aadan xasuusanin mararka qaarna inaadan weydiisanin sida darteed waa inaad maskaxda ku haysato marka alla baryayso inaad baryayso alla kariim ah oo wax kastana haya wax kastana ku siin kara ilaa laga yaabo inaad ka gaarto dareenkaagu inuu abuuro dareen dhahaya allow wax kastoon u baahanay ama ha weynaadaan ama ha yaraadaan waxay wariyaan nabi Muuse inuu yiri ilaahay oo soo ilaahay la munaajoonaya oo ilaahay la hadlaaya inuu yiri ilaahay oo mararka qaar waxyaabo fara badan baa igu soo dhaca waxaas igu soo dhaca
waan ka xishooda ilaahay inaan adiga ku weydiiyo oo waxa kamid ah buu dhahay waxyaabaha aan isiraahdo ilaahay waxyaabaha waa waxaas un weydiin laakiin wax kasta ilaahay hore wala ordin markaas ilaahay wuxuu u waxyooday marka aan noqonayso adoonkayga saxda ah waa marka aad u baahan tahay xoolahaaga cooskooda markay kugu soo dhacaan inaad aniga i weydiisato cajiinka aad wax ku qasanayso marka ay kugu soo dhacaanna inaad aniga i weydiisato waana inaa ogaataa inaan ahay alle kun fayakun oo wixii aan rabo hore ka bixin kara waxa maskaxdaada ku soo dhaco haduu ilaahay damco inuu ku siiyana oo hore ka siin karo sida darteed Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu karaameeyay waxa kamid ah khalqigiisa oo dhan uu karaameeyay khalqigiisana wuxuu ugu karaamo badiyay bini aadamka walaqad karamna bani aadam wa hamalnahum fil barri wal bahr culimadu markuu waxay yiraahdeen karaamadaas ilaahay uu bini aadamka siiyay waxay ka timid inuu marka hore siiyay aqli ay wax ku kala soocaan wuxuu kale ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay inay ka xirfad fiicnaadaan oo ay isticmaali karaan khalqigiisa inta kale yaani cirki bay dhaxmari karaan awood baa loo siinayaa baddi bay dhaxmari karaan waxmalnaahum fil barri wal bahri dhulki bay marayaan oo isticmaalayaan uumka kale oo ilaahay abuuray buu ilaahay u sakhiray u fududeeyay wuxuu kale ilaahay ku karaameeyay markay soconayaan inay ku soconayaan ayagoo taagan inay soconayaan oo jirkooda uu taagan yahay ay ku soconayaan afama yamshi mukibban ala wajhi xayawaanaadka kale waa aragteen ayagoo fooraray soconayaan laakiin basharka markay soconayaan ayagoo taagan bay soconayaan waxa kale oo ay yiraahdeen culimadu waxa bini aadamka ilaahay ku sharfay oo ku karaameeyay in noloshooda ay gacantooda ku soo saartaan oo marka ay wax soo saaranayaan oo risqigooda soo saaranayaan ayaga dhididaya ayaga beerti falanaya ayaga gacantooda ku shaqaysanaya waxay kale oo yiraahdeen marka ay rabaan inay wax cunaan oo ay cunto afka galiyaan gacantii ay ku soo shaqaysteen bay ku soo qaadayaan markaas ay afka gashanayaan waxa u fiirsataa bay yiraahdeen xayawaanka marka uu rabo inuu nolol raadsado ma samaysan karo beer ma falan karo gacantiisa wax kuma shaqaysan karo marka uu rabo inuu wax cunana wax ka sii tijaabinaya oo kuleelka ka fiirinaya oo dhadhanka ka fiirinaya oo wuxuu inay fiican yihiin ka sii fiirinaya oo noocooda qiyaas ka sii siin kara kama horeeyaan xoolaha waad aragteen ma samaysan karaan nolol haday damcaan inay wax afka galiyaan wax ka horeeyo ma jira ayaga afkooda la galaya afkii baa ka gubanaya ama markaas ay tijaabsanayaan laakiin khalqiga kale oo basharka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku karaameeyay inay leeyihiin wax ka horeeyo gacantooda inay ku shaqaystaan gacantoodana wax ku soo qaataan gacanta afka intaysan soo gaarin ay ka sii fiiriyaan sida darteed ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu ku kalifay bini aadamka uu ku karaameeyay waxa kamid ah inuu kalifay oo shaqo u dirsaday oo adduunka inay camiraan uu dirsaday adduunka inay horumariyaan uu dirsaday nolosha bini aadamka inaad ka qayb ka noqoto oo adiga inta aadan noqonin qof adeega ah waxa ilaahay ku siiyay awood ay wax ku adeegi lahayd oo wax ku qaban lahayd sida darteed ilaahay subhanahu wa ta'ala karamkiisa iyo deeqsinimadiisa iyo gobonimadiisa waxa kamid ah inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala bini aadamka uu siiyay awood ballaaran oo wax ku garto awood asaga u gaara oo wax ku qabsan karo عقلي uu ku garan karo waxa ka hor imaanay ee cilmiga uu ku qaadan karo awoodahaas oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala khalqigiisa isugu daray sida darteed Allah subhanahu wa ta'ala waa Allah kariim ah adigana muslimka waxa laga doonayaa inaad noqoto qof naftiisana si karam ah oo sharaf leh kula dhaqma khalqigiisana kula dhaqma والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته isaga waduudan tashiga lala wadaagayne isaga wuxuu doonayaba cidi la waastayne waxba kama qarsano qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimane